ugu horeen maamul ku soo dhawow idaacadda goobjoog kadibna waxaad faahfaahin naga siisaa doorka ururka haweenka ay ku leeyihiin dadka fatahaadaha ay saameeyeen. waa mahadsantahay maamul arrintan waa arrin qaran oo dhacday musiibo waaye marka haweenka gobolka Banaadir hadana anaga waxaan haweenka iyo caasimada ku dhaqnaa barnaamijkan haweenka gobolka maaragtay ka weeyahay sababtoo ah hadda waxaan isla fadhinaa fadhiyo xildhibaanada labada aqal fadhiyo bulshada waa adeegayay fadhiyo xirbajoogta galmudug dibad waxaan samaysanay magacaan ku midaysanaa oo ah dumar iyo dan qaran kaasoo maaragtay la bilaabay aqoon iyo furo dhaqaale la ururiyo iyadoo aan ku kaabayno guddiga xukuumadda ay ku dhawaaqday laakiin haween ahaan ayaan anaguna isku xilqaanay ayaan kaasaan bilownay insha allah waxaan rajaynayaa in kuwa qayb naga midana ay bixi doonto kuwa kalena halkaan ay abaabulka ka turmayn doonaan haddana shiraan leenahay shirkaas wixii kasoo baxana insha allah waan rajaynayaa inuu nabad iyo khayr noogu dhamaado بعد الصحافة هذه وقت الجرده وده إسكت وده والرسالة جبنا وحكت على بني زراعة ينتكي ومد الصوت عليه بتلبسوه وينسى والبابا الرسالة مركوا عدين إباهن ومالي ومديسن جارهان جوج وحيارا عن كل مكان الحكم ده إن هي درمت الورية ذلك يمن لغتنا تكسر ماليات بالعربي runtii aan ku amaanayo abaabulka iyo fikirka shacabka ee dhageysanaya ee Soomaalida ah ee ku dhaqan caasimada ee kamid ah dhageystayaasha iyo taageerada badan buu haya idaacadda TV-ga iyo maaragtay guud ahaan madaxda maaragtay goobjoogta in ay halkaas aad ka bilowdaan idinkan abaabulka mar walbaba anagu way taaganahay xalaanidii xildhibaan anad waxaan ka dhigay TV-ga qaranka shalay subax waxaan ka dhigay أنا نقول TV universal TV درد عن قبل لو إذا عد أذكر قبل كبنادر ساكت تذكر إذا عد قبل كهليلي وحنا هو واحد من نسميه كرنوع دام المد الصومالية دارهان TV الصومالية ذكر نسميه بشيء الشهر الدنيا قارب يبقى كجيران إن أن مارس قوة داونا يقوى الثلاث شعب الصومالية دام كل دورنا إن أنا نستعمل عاونت والعالم البلدين يعني الإفتاء سجارة بنتي معناتي خرجت إلى حقي اللي هو استعجلنا وأنتجنا لازم وحنا جمع المدير ميلتي بنتي بس اللقب بنتي جبر آدم هو ينير هذا النجمع كان كاركود ميلت كوال هلا كاروا الله هاتي الوقت أرسل دق مجال البلدين الصحية وأهيد تبدي أهيد الدنيا الشبك أيضاً إلهي كتب الدليل بالدليل على الفتاحة وحرجينا مكينا أبابلنا وبالشغل السحر قبل الصوماليات نود الكيزان بوحان ديارو معي بناني أبابل بالشغل عندنا أبابل كوهنا ماما قبل كبنادر نور بالدنيا قبل كبنادر أعمل بقى مجال الشيك إذا نغنى وقت السوء إن شاء الله باقوا كتواب الدونا بيدي يهوشي يصير الله قبنا علينا الدنيا قبل كايا أوامير تسنتسلنا لكن أبابل كيف بالشغل يتعنتي إن درين كان إنجري بالشيء اللي جالسين بقول ميل وناسين نمريسا برنامج كيف أنا أنتي وقت كفر الناس جروب كل سنين العجب بدنا في صور دعاية اللي قربها ميل والبابا أدمنا السنين يقفل بابا يدك كسر ضد جروب كانوا وصلها مريضا قرن أيام كل يوم كاسان رجينا يا أيوة حتى إلى سبيل بدأ اللي بعنا سنترى اللي بدأ أخربه taasoo sharaf noo tahay haddana haweenka gobolka banaadir in aan reermidin noqono garabna istaagno bulshadeena waa tahay imaam jawaahir waxaad ka warantaa bal doorka dadka rayidka ay ku leeyihiin sidii dadkan Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay soo gaartay loo samata bixin lahaa waxaa loo samata bixinayaa qof walba oo dhegeysanaya xilligan idaacadda goobjoog oo hadda adiga aad ka hadlaysay waxay soo gaarsiin karaan dharka waxay keeni karaan raashinka 17 degmo qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed muwaadin degmadaada ama xarunta idaacadda kugu dhow ama xarumaha TV-yada haddii aad dibadda aad joogto kusoo dir dhaqaalaha $1 ha noqoto kiilo sokor ha noqoto xabad farqsimood ha noqoto dharka guryaha kabarada ka buuxa raashinka cuntada maxaan ku raacaa dawada aan dhahde inta uu baahan dadku biyo ku jiraan biyo qaaday biyo waa waxyaabaha laga bixisay kamid yihiin masiiba naga dhacday
waxaan leenahay inta dhimatay ilaahay u naxariisto waxaa loo baahan yahay gurmad dad ah waxaana ka codsanayaa madaxda iyo shaqaalaha idaacadda goobjoog inay si gaara tv-ga iyo idaacadda labadaba si hufan maaragtay looga wada shaqeeyo bulshada loogu yeero ardayda jaamacadaha dugsiyada sare hoose dhexe dad walba oo muwaadin oo soomaaliyeed oo adiga iyo anigaba aan ugu horeyno hooyo waxaa nalooga baahan yahay inaan dhahno caawi walaalaha beledweyne. waa tahay maama Jawaahir waxaad kaloo ka warantaa arrintan door intee lag ayay ka qaadan karaan hay'adaha caalami ee dalka jooga? wallahi waxay ka qaadan karaan dhammaantaas dowladda federaalka oo madaxweynaha ugu horeeyo iyo prime ministerkaba waa tagtay guddiyadii way la fariisteen galo wasiiraa la saaray wixii waa laba qaybood ilaa saddex qayb inaan u kala qaadano door annagu aan leenahay door ay leeyihiin madaxda goboleedka hirshabeelle iyo doorka dowladda federaalka marka midka shacabka soomaaliyeed is-abaabulaya madaxdiina noocan doonaba aan noqonayn oo dadka kaabaya mas-uuliyiinta la magacaabay oo la rabo inay wax soo ururiyaan waxaan ka dabaalanay marxalado badan oo ay ugu horeyso 14 Oktoobar maalintii mucjisada maalintii madoobeed maalintii dhingiriirka waan ka dabaalanay dadka Soomaaliyeed iyo dibadda dhaqaaleedna maantana waan ka gudbi karnaa kaliya ma aha inaan ka gudubnay waa inaan u diyaar garowno xilliga guga iyo sanadka dambe cidda ilaahay gaarsiiyo maanta beledweyne noocaytaan noocaan inay ahaato dad Soomaaliyeed wax bedeli kareenaan nahay in la arko gabdhaha Soomaaliyeed nahana waxaan diyaar u nahay inaan waqti walba iyo saacad walba aan u fariisano xaaladda beledweyne sidaan ula socolayn iyo maxaan ku caawin karnaa qof walba muwaadin oo maxaa ka qaban kartaa maxaad ka bedeli kartaa marka kabarada ku buuxa wax walba guryaha noo yaalle hala soo baneeyo iskuulaadka ardayda hooyo u tagmaamo oo ku dheh hooyo kiilo sokor iyo kiilo bariisaan rabaa gee iskuulkaaga abaabul bulshada looga baahan yahay waxaana waajib nagu ah inaan istaagno arrinta beledweyne. waa tahay doorka haweenkiina markii loo eego maadaama taa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir doorkiina iyo kacdoonka dadka ee arrintan aad ku faraysan dadka loo gurmado goorma ayaad bilowdeen? annaga waxaan bilownay maalintii subaxii doonta markay qalibantay ilaa hadda sidii aan taagan waxaan soo shaqeynay waxaan soo taagan ilaa sidii doonta markay 2 saac iyo 10 daqiiqo la heeran malaynaa markii aan maqlay ilaa hadda waxaan arrimahaas ahayn oo maaragtay aan ku howlanahay waa hal iyo labo oo shaqooyinka waajibaadka markaan qabanno inta ugu badan waxaan waqtigeena gelinaa inaan ka shaqeyno arrinta beledweyne xilligan aan kula hadlaayo ayaan maaragtay waxaan isla joognaa dhalinyaradii idaacadaha iyo tviyada qaar qayb ka midana oo hadda iyaguna goob kala fadhiyaan annaguna waxaan joognaa goob kale halkaas aan ku garfaynaynaa sidaan walaaleen u caawinahay. waa tahay markii aad eegto dadkan dhibaatadu soo gaartay waxa ugu badan hadda loo qaban karo ee la gaarsiin karo maxay kula tahay? wallahi maamo waxa la gaarsiin karaa raashin diyaaradaha waa la kareyn karaa diyaaradan qaadan karnaa hay'adaha caalamka oo dhan iyo maaragtay samafalayaasha dhan way naga caawin karaan waxaa la samayn karaa lacag hadii la ururiyo isla goobta meesha ay joogaan beledweyne oo dhan ma baaqin beledweyne qaybtana nool inta raashinka iyo baqaarada waxa ay yaalaan ayaan ku bixin karnaa inaan maaragtay aan ku caawino dadkeena marka waxa la samayn karaa waa la tegi karaa macna ma samaynayso in wax la qaado xagga laga heli karaa waxaa laga soo geli karaa dhankaas iyo maaragtay galmudugga laga imaan karaa walaalaha Puntland Somaliland shacabka Soomaaliyeed sida markay masiibadu dhacdaan isugu gurmadna waa naqaan aan isku gurmadna aan isku caawinna si walaalnimo ah qof walba maaragtay dhinaca matabaan hadii laga soo galo dhankan koonfur galbeed iyo boqol dhankaas wadada kor beledweyne xagga laga imaan karaa meel aan laga tegi karin ma jirto qofkaaga markuu dhib ku jiro waad awoodaa inaad la qaybsato xanuunka marka aan u istaagno inaan walaaleen caawino. waa tahay maamo arrintan way soo noqotay marka sida ugu sahlan ee wax looga qaban karo maxay kula tahay? waxay la tahay taas inay marka hore inaan biyaha ku dhex jira kadibna in xal waara loo helo beledweyne waa qasab. waa tahay xubnaha guddiga aad sheegtay in ay ku wajahan yihiin beledweyne goormee ayay ku wajahan yihiin oo ay gaarayaan? wallahi waqtiyada soo socda waa la sugayaa sababtoo magaaladan waa haddaba waa aragtay wasaaradda gargaarka waa tagtay tendooyin la geeyay dadka isabaabulayaan dad badan aad tegi doona insha allah marka ma aha qasab inaan beledweyne tagno laakiin ahmiyad ugu weyn waxay tahay in aan beledweyne wixii loo geyn lahaa la diyaariyo taasoo aan sugayno in ay dadku ay is-abaabulaan ama lacagaha xawaaladaha loo dhigo halkaas laga iibiyo
marka inaan annaga gobolka banaadir dadka ku dhaqana xildhibaanada iyo sanatarada gabdhaha bulshada ololeeya ee mar walba nabadda taagan kuwa qurba joogta ee aan hadda qolka ku midaysanahay intaba dhammaan waxaan rajaynaynaa marka waxaan idinla soo wadaagi doonaa aqoon-nabaradii kuwaas oo maaragtay ayagana gabdhaha soomaaliyeed ay ku ururinayaan dhaqaale lagu badbaadinaya naf iyo maal oo ah midda ugu wanaagsan ee qofka soomaaliga ah isagoon qabiil iyo reerid iyo jufood iyo isteed midnaba ahayn in aan soomaalinimo isugu yeelin karno isgarab qaban karno waa intaas annagoo fulinayno ilaahi subxaana watacaala waajibaadka uuna saaray waa tahay doorka qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee arrintan ay ka qayb qaadan karaan xaggee ayuu gaarsiisan yahay midda haddaan ku wada hadlayno gaarsiisan yahay sababtoo ah bulsho soomaalidu waxay tiraa war helaa kala hel dadku markay war helaan markay helaan meel wax ku diraan markay arkaan umad hadlaysay dad wax qabanayo dadku waa u diyaar inay dadkooda caawiyaan waa tahay ugu dambeyntii maxaa ku baaqaysaa waxaan ku baaqayaa ummadda soomaaliyeed isku gurmato oo maaragtay idaacadaha qof walba muwaadina iyo goob walba wax la geeyo la isagaadimo dadka dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan in dhalinyaradu guryaha garaacaan oo dharka iyo raashinka iyo laga soo ururiyo barahana annaga markaasaan meesha wax la geynayo aanu tilmaamno Here we go.